Hi, soo dhawaad saaxiibayaal kuna soo dhawaada qaybtii shanaad ee seasonkii noo socday. Korintaanu bilowin muuqaalkana like star kuna soo biri janaalka siina share gareey. Qaybtan waa qaybtii ugu dambeysay ee seasonkii inoo socday. Waxay ahaatay Dani habeenkii markay ay ka soo tagto soo jun gurigeeda ay soo aadeysa. Aydan xilligaas kaligeeda ay isku milisay saatay waxaan ogaanaynaa gadaasheeda inuu socdo soo jun balse ayda midaas lamaba soconin. Ugu dambeyntii wuxuu isku sheegayaa inuu gadaasheeda uu socdo markay gurigeeda ay gali rabtay. Wuxuu ku dhahay maanta oo dhan gadaasheeda ay soo socday adiga ayaan ku ilaalinayay. Maxaa yeelay hantinol oo socota in nagala qaata ayaana ka cabsada ayuu ku dhahaya. Wixii ahaataba Dani midaas waa ay aaga mahadcelinaysaa intaas wixii ka dambeeyna waa ay kala tagayaan. Asaatee Dani markay guriga soo gasho gabi ahaanba Jaho ayadu waa ay waanaysaa. Xilligaasna ma aysan garanaynin isaga meel uu ku maqan yahay. Sidoo kale waxaa arkaynaa Heeraan aydan ugu dambeyntii waalidiinteeda ay la wadaagaysaa Jaho inuu ku soo daadiyay. Waxayna ku dhahaysaa idinka waa isku cuntaynaysaa asaatee aniga xanuun ayaa gudaha ka dareemaya. Meeshii loo baanayn inay ii soo argudaan ayay ku dhahaysaa idinka kale ma jeceshihiin. Asaatee maamada ayaa dharka dhiganayso aydan dagaal ay diyaar u ahayd. Ishaq ayay ku dhahaysaa ninkaas meesha uu joogo aniga ayaa u tagayo balse waxaan ogaanaynaa kaliya ayada inay booteynayso. Sidoo kale Jaho asaga weli gurigiis kuma uusan soo laabanin Danina aad ayay aaga welwelaysay balse waxaa jiray arrin Dani ayada aysan ka warhaynin. arrinkaas oo ahaa Jaho dhowr saacadood ka hor in loo soo sheegay awowgiis inuu shil uu galay. intaas wixii ka dambeeyay Jaho guriga awowgiis ayuu soo aaday. awowgiisa naftu ay ku jirtay asaatee kooma ayuu ku jiray asiga. Danina fariimo isdaba joog ayay u soo qorisay asaatee asaga xilligaas waqti uu aaga soo jawaabo ma uusan haynin. wixii ahaataba maalinka xiga Dani markay shaqadeeda ay imaado waxay ogaanaysaa Jaho asaga weli xitaa inuusan shaqada u imaanin. Jahon asaga caafimaadka awowgiisa ayuu la tacaalayay. asaga kaligiis ayaana kor taagnaa xilli walbo balse Jaho kambaniga uu ka shaqeeyay jadwalka u degsanay waxaa lagu soo daraya Jaho qof inuu ka dhaawacan yahay sidaa darteed uu shaqada u imaanaynin. Danina midaas waa ay ogaanaysaa saate waxay isweydiinaysaa qofka asaga ka dhaawacan. waxay ahaataba Jaho maamulkiim ayaa soo booqanayo asagana sabar ayuu ku dhahayaa awowo oo caafimaadi doona anagana intaan noolnahay waxaa dhacaysa inaan la tacaalno. maalinkaasi tiimka meeting ayay lahaayeen balse meetingkaas maamulkiim iyo Jaho ayaa ka maqnaayeen. waxay ahaataba tiimku markay imaadaan xafiiska uu miitingku uu ka dhacayay waxay baarkayaan Bagon iyo John oo miiska jiifaan ayagana waa ay la yaabayaan midaasi. hasaatee taas dib uma dhigayso kulankooda oo ayagoo meesha jiifan ay miitingkooda sameynayaan. Bagon iyo John ayaga waa ay isku jiifeen ficil walbo halkaas lagu sameeyan ma aysan maqleenin weliba ku soo kacaynin. ugu dambeyntiin waxa ay nafta ku soo noqonaysaa markii miitingku uu dhammaaday ayagoo isla yaaban waxa halkan keenay. Dani habeenkii markay shaqada ay ka soo baxdo mar ayadoo la joogto soo John waxay arkaysaa soo John uu oonayo asagana sababta uu oonayo sabab kale ma aysan ahayn wuxuu akhrinayay buug ay soo saartay Dani. qaybaha uu ka akhrinayna waxay ahaayeen qaybaha ugu xamaasada badan ee Dani ee nolosheeda kaga hadlayso. waxay noqotaa maalinka xiga Dani Jaho ayay la soo hadlaysaa. almiina xitaa haddii aadan waqti ii haynin iisoo jawaab ayay ku dhehaysaa. sidoo kale fariin waxay u soo qoraysaa haddii aad guriga ku soo laabato waa ku dili doonaa. waxay ahaato ugu dambeyntii Jaho Dani waa uu la soo hadlayaa aniga waa noolaa ayuuna ku dhahayaa. hal saac ka hor ayaana guriga imaaday. Dani hadalkaas markay ay maqasho islamarkii baska ayay ka soo degaysaa waxayna bilaabaysaa inay u soo lugayso guriga. ugu dambeyntiina guriga markay imaado waxay ogaanaysaa Jaho asaga inuu daalan yahay weliba uu hurdayo balse waa ay u soo dhawaanaysaa waxayna dareemaysaa asaga qandho inay hayso. intaas wixii ka dambeeyana kaniin ayay u keenaysaa. dhab ahaantii Jaho asaga zaahid inuu u daalan yahay wejigiisa ayaa laga dareemayay wuxuuna u muuqday sida qof aanan habeeno fara badan seexanin. Danina Jaho waxay u sheegaysaa zaahid in ayada ay aaga welwelaysay. ugu dambeyntii Dani Jaho waxay ku dhahaysaa adiga aniga ma iga heshay haddii aad iga heshayna kelitaankaada goormo ayuu soo bilowday. hasaatee Jaho wuxuu ku dhahayaa aniga ma garanayo xilligii aa ka helay balse waxaana laalaab ku jirin ayuu ku dhahayaa aniga zaahid inaa kuu jeclahay. hasaatee ma aqaano qofta aad jeclaha xilligaa heli doono. habeenkaasi Jaho Dani wuxuu u caddeynaya asaga zaahid inuu u jecel yahay tanina ay ahayn mid hadda soo bilaabatay. Dani ayada waxaa dhacaysa inay iska ilmeyso maxaa yeelay qof ilaa iyo heerkan jecel ayay ka fogaatay ayadoo weli xitaa aanan dareemin jecelkiisa. waxay ahaataba Jaho ugu dambeyntii Heeraan ayaa soo wacayso waxay bilaabaysaa asaga inay aflagaadayso waxayna ku dhahaysaa sabab aadan u qabanaynin taleefankeyga. hasaatee asaga islamarkiiba uu dareemaya ayada inay cabsan tahay. xilligaasina waxay fadhisay maqaayadii inta badan ay ku kulmi jireen Jaho iyo Dani balse Heeraan ayadoo halkaasi fadhisa waxaa arkaya soo John waa uu soo wacaya wuxuuna ku dhahayaa ma kula soo fariisan karaa balse maya ayay ku dhahaysaa kulanka beritoole ayaa ku wada sheekaysan doonaa weliba isku arki doonaa. asagana wuxuu ku dhahayaa haddii aa u baahata in lagula fariisto waa isoo wici kartaa xilli walba aniga ayaa kuu jooga ma laga yaabo inaa cidlooto. sidoo kale Dani waxay dib ay ugu soo laabanaysaa Jaho go-a iyo waxyaabahaas ayaana ka qaldanaa. sidoo kale nalka ayaa u daaranaa waa ay kasoo daminaysaa. sidoo kale anaga waxaa dareemaynaa xitaa Dani ayada inay u baahan tahay Jaho. maalinka xiga John sidaysi lamid ah ayada mar kale ayay qalad galaysaa. Heeraanna maskiintan ka mid inay qayle ee nafta ay aaga qaado. hasaatee ugu dambeyntii halkii ay joogeen waxaa imaanayo Jaho asagana wuxuu bilaabayaa si degan inuu ula hadlo John wuxuu ku dhahayaa aniga waa ku dareemi karaa adigana qof dumar ayaa tahay oo xaaladahaada waa ay iska tiro badan yihiin balse waxyaabaha qaar dadka inay ka baantooban ayaa wanaagsan ayuu ku dhahayaa. adigana waxaa loo baahan yahay sidaan inaad wax ka bedesho weliba qaladaadkaada inaad wax ka barato maalin walbana in lagugu qaliyo macno ma soo kordhinayso. maalinkaasi John ayada xoogaa dhiirigelin ayay
ayay qaadaysaa waxayna u soo jeesanaysaa shaqadeeda si wanaagsan inay u qabsato ugu dambeyntii kambaniga Sojun ayaa imaanayo asagana kafee aad u tiro badan ayuu waday weliba oo ugu talagalay shaqaalaha Sojun waxaan ogaanaynaa asaga halkan inuu u imaaday arrimo shaqo inuu kala hadlo Jaho iyo Heeraan ayagana buug ayay soo saarayeen waxa uu rabay inuu u disaangareeyo asiga balse Heeraan lacaga ay rabtay in shaqada loogu qabto asagoo uu ka soo horjeesanaya nintaas lacaga ka tiro badan ayuuna sheeganayaa ayadana waa ay xanaaqaysaa waxayna bilaabaysaa in asiga ay aflagaadeeso ewelba designer wuxuu oo gaabagaabay anaga ayaa soo wadan ayay ku dheesaa haddana fasax ayaa tahay balse Sojun design-kiis markii uu tusiyo Heeraan iyo Jaho Heeraan ayada fikirkeedu waa uu isbedelaya hadallada ay ku hadlaysana waxay ogaanaysaa inay qaldanaayeen ugu dambeyntiin waxay ku heshiinayaan asiga wuxuu rabay in loo sameeyo si uu u disaangareeyo buugaas kofarkiisa Danin waxaa loo sheegayaa ayada inuu raadinayay designerka weyn ee Sojun balse waxaa dhacaysa asiga markii uu soo baxay inuu banaanka uu kula kulmo hase haatee Heeraan iyo Jaho ayaa ka daba imaanayaan waxayna ku wada heshiinayaan maalinkaas inay isa soo raacaan weli maqaayi ay ka soo casheeyaan habeenkii ay dhiibaanayaan maqaayadii ay rabeen inay ka casheeyaan afartooda wada jir weliba aad ugu faraxsan waqtiga ay qaadanayaan ugu dambeyntiin waqti aad u fara badan kadib waxaa la gaarayaa xilliga kala tagooda ugu dambeyntiina Dani gurigeeda ayay ku soo laabanaysaa balse guriga waxaaba aga soo horeeyay Jaho habeenkaasi waxaa dhacayso Jaho asiga Dani inuu shumiyo Dani midaas waa ay aabini weynaysaa waxay aataa Dani maalinka xig markay shaqadeeda ay imaado maalinkaas waxaa dhacayso Dani aad wax wiji ah in la siinin dhammaan shaqaalaha waa ay jaakirayeen ayadana waxay isweydiinaysaa khaladka ee gashay marna waxaa dhacayso ayada iyo Heeraan oo isla taagan inuu maamulaha meesha uu soo maro maamulahana kaliya Heeraan ayuu salaamaya intaas wixii ka dambeeyna halkaas waa uu ka tagayaa labaantii Dani ayada ma aysan garanaynin maalinkaas waxay sameysay weliba sidaas loogula dhaqmayo waxay ahaato maamulaha ugu dambeyntii maamulka xigeenka Mrs Go ayuu amar ku soo siinaya Dani in shaqada laga buriyo Mrs Go ayada waajibaadkeeda ay gudanaysaa dhammaan tiimka meesha joogan ayna u sheegaysaa Dani ay shaqada inay fasax ka tahay waxaana lagu eedeynaya ayada inay leexsatay 5,000 koobi buugaag laga sameeyay lacagtooda labaantii Dani ayada sida loo bahdilayo aad ay ugu xumaanaysaa waxayna aaminsaneyd qaladkan lagu tuhmayay inaysan ayada ee sameynin balse xilligaas ma aysan jirin cid rumaysanayso ugu dambeyntiin waxaa dhacayso alaabteeda inay isku soo toosisato bixitaan ayayna isku diyaarinaysaa liigana wuxuu macsalaameynaya macsalaameyntii ugu dambeysay sidoo kale Heeraan ayaa kasoo dawbaxayso waxay ku dhaysaa anigu waa ku xumay sida lagula dhaqmayo tanina ma cadee karo inay sax tahay iyo inay qalad tahay hase haatee wax walbo qaldan dib ayay u saxmi doonaan haddii aadan adiga sameynin waa la ogaan doonaa kambaniga ayayna kasoo saaraysaa banaanka ayay la imaanaysaa waxay ahaato Dani ugu dambeyntii halkaas waa ay kasoo tagaysaa gurigeeda ayayna soo aadaysaa balse halkaas waxaa orod ku imaanayo Jaho asagana waxaa loo sheegayaa hadirtaa inay baxday Dani wuu kasoo dawbaxaya ugu dambeyntii waxaa dhacaysa inay kulmaan Dani maalinkaas ayada zaid ayay u qalbi jabsanay Jaho laabtiisa ayayna ku nafisaysaa indhaheedan ilmo fara badan ayaa kasoo daadanaya waxay ahaato Jaho Dani guriga ayuu keenaya asagana ulajeedkiis wuxuu ahaa dhab ahaantii ayada murugada ee dareemayso gabi ahaanba inuu ilowsiiyo waqti aad qurux badan ayuuna la qaadanaya si ay murugada ay u ilowdo maalinkaasina xitaa waxaa dhacaysa cuntada ay cuni lahaayeen inuu asigu u diyaariyo ugu dambeyntiina kaar bangi oo lacag ku jirto ayuu farta ka saaraya wuxuu ku dhahayaa lacagaha waxa ku iibsan kartaa wax walbo adiga aad rabto Danina midaas aad ayay ugu farxaysaa sidoo kale maamulka maalinkaas wuxuu ogaanayaa Jaho inuusan shaqada u joogin liiga iyo qoftiisana waxay ku dhahayaan adiga ayaa saaxiibtiisa shaqada ka burisay asagana waa qasab ayay ku dhahayaan saaxiibtiisa inuu maanta waqti uu la soo qaato weliba qalbiga uu u soo qaboojiyo maalinkaas oo dhan Dani iyo Jaho ayaga waqtiyadooda ayay ku raaxaysanayeen dhab ahaantii waxaan ogaanaynaa Dani ayada hadeertaa inay aqbashay jaceylka uu u qabo Jaho kaliya waxaa dhineed inay isguursadaan weliba ay isku fogaadaan balse zaid ay iskugu soo dhawaadeen hadeertaa jaceylkoodana mid muuqda ayuu ahaa weliba cid walba ee dareemayso sidoo kale Sojun mar kale isaga Heeraan ayuu la kulmayaa aydan maadaama ay murugaysaneyd Heeraan ayuu gurigiisa u soo raacaysa halkaas ay bilaabayaan inay maskaxda ku diraan calaashan waxyaabo maanduuriyaha ay ku cabaan ayaa ka wadaa baashaalkoodan waxaa lagu gaarayaa ilaa maalinka xiga Heeraan sida elta waxay ka wadaa Jaho waa ku qaday Sojun ha ku qadeen waxay noqotaa maalin maalmaha ka mid ah Jiyon waxay helaysaa feel cadeenayo gebi ahaanba Dani ayada inaysan wax qalad ah ku lahayn lacagihii la ilduufsaday arrinkaasina Heeraan ay la wadaagaysaa Heeraan dhammaan cadeymihii markay akhriso waxay ogaanaysaa Dani in qalad laga galay ugu dambeyntiina waxaa dhacayso Dani maalinka xigay inay kambanigeedii hore ay dib ay ugu soo laabato waxaa dhacayso ayada dhammaan qaladkii laga galay in laga raaligeliyo xitaa maamulinta raaligelintaas dhinac ayay ka bixinayaan Jahona isaga aad ayuu ugu farxayaa maadaama ay Dani ee shaqadeeda ay dib ay ugu soo laabatay sidoo kale arrin kale ayaa meesha ka soo baxayso arrinkaasoo ahaa Sojun iyo Jaho ayaga inay walaale ay yihiin calaashaan Jaho awoowaha soo koriyay ayaana Sojun isagana soo koriyay hasaatee waxaa dhacday Sojun iyo awoowihiis inay kala dhumaan weli muddo fara badan aysan is arkin taasoo keentay Sojun isaga inuusan ogaanin Jaho inuu walaalkiisa uu yahay awowgiisana ma uusan garanaynin meel uu ku dambeeyo balse Jaho ayaa baaritaano fara badan sameeyay ugu dambeyntii wuxuu ogaaday Sojun isaga walaalkiisa inuu yahay waxay noqotaa Sojun ugu dambeyntii waxaa loo keenayaa awowgiisa kaasoo dhaawacnay aad ayuu ugu xumaanaya isagoonan ogeyn awowgiisa inuu dhaawacmay Jaho iyo Sojun ayagu waxay ballan qaadayaan haddii ay wix ka dambeeyay wadajir inay ku wada socon doonaan sidoo kale Heeraan iyo Sojun ugu dambeyntii xiriir jecel ay sameysanayaan
halka Jaho iyo Danin ayaga xiriirkooda jacayl ay hore u sii wateen xitaa maamula Kim iyo Mrs Go ayaga lamaana ayay noqonayaan sidoo kale Lika iyo qoftiisa Mrs Zonga ayagana dib ayay iskugu soo laabanayaan wixii aataaba taxniin waxa uu inoogu dhamaanaya Jaho oo Dani shuminayo ayagana wadajirkooda aad ayay ugu faraxsanayeen intaan ka kulmeynana muuqaalka xiga nabada